السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddigii uu magacaabay dib u eegistii iyo falanqeyntii xubnaha doorashooyinka oo wakiilka ahaa wasiir Carab oo kamid ahaa wasiir Ashkir. sida la socotaan waxaan aad ugu faraxsanahay in arinkii uu ku soo dhamaaday si iswaafaqsan. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan la wareegnay gudiyadii si aan ugu galno arrimihii xigay oo ku saabsanaa soo xarintoodii iyo tababaradoodii. sida la socotaan xafiiska wasaaruhu wuxuu magacaabay koox farsamo oo ka shaqeyn doonta Ra'iisul Wasaare kala shaqeyn doonta yani fulintii heshiiskii 27 May oo taasoo ay ka mid yihiin arrimaha ku saabsan dib u heshiisiintii gado isku keenistii iyo la shaqeyntii golaha wadatashiga qaranka iyo ayaga also ka shaqeyn doonaan sida la socotaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu mas'uul ka yahay amniga doorashada. kooxdan farsamo waxay kala Ra'iisul Wasaare kala shaqeyn doontaa inay mar walba xiriiriyaan arrimihii ku saabsanaa amniga doorashooyinka. tiimku wuxuu leeyahay khubaro yani ka wada shaqeyn doona arrimo fara badan oo ku saabsan taabagelinta doorashada hadduu Ilaahay yiraahdo. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa ka go'an in guddigu sida uu dhaqsiyaha badan oo u soo xaroodo. waxaan rajaynaynaa guddiga inuu soo xaroo doono maalinta Khamiista 24 bisha May. waxaan rajaynaynaa inuu tababarkooda uu qaadan doono muddo asbuuca isla markaasna ay ka shaqeyn doonaan yani arrimaha ku saabsan doorashadooda isla markaas soo saari doonaan guddigiisa soo saar jadwalkii saxda ahaa ee doorashooyinka hadduu la yiraahdo. marka kadibna ay ku laaban doonaan goolihii deegaanadii doorashooyinka ay ka howlgeli lahayn hadduu Ilaahay yiraahdo. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa ka go'an in doorashada labada aqal sida dhaqsiyaha badan loo guda galo iyadoo doorashadaas laga rajaynayo inay ku dhici doonto yani doorasho madax bannaan hufnaan cadcadin ay ku jirto hadduu Ilaahay yiraahdo.